بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan marka hore halkan tacsi ugu dirayaa qoysaskii ehelada saacadtii ay ka geeriyoodeen dadkii Soomaaliyeed ee maanta ku geeriyooday wadanka Sweden iyo wadanka England una dhintay cudurka coronavirus. waxaan rabnaa walaalayaal dad Soomaaliyeed dhaqankeena Islaamka ay dhaqankeena Soomaaliyeed wax badan oo ku wanaagsan oo ah is xiriirinta isla noolaanshaha isqaraabaysiga salaanka isku socodka yaa dhibaato ku ah ama horseedi kara in cudurka dhexdeena aad ugu faafo. waxaan marka hore ugu baaqiyaa dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool inay raacaan tilmaamaha iyo fariimaha uga imaanaya dawladaha ay ku hoos nool yihiin in xiliyadan adag ee duruufaha adag lagu jiro dhaqankaas wanaagsan aan lahayn ee wax badan oo kale noo taray aan xilligan hakino oo aan joojino isbooqashada isku socodka qaasada dadka dhalinyarada ah iyo dadka xoogga leh ee meelaha ku baxaya bulshooyinka ay joogaan ee cudurka u soo jiidaya dadka waayeelka ee korkeena ku nool. waan ognahay Yurub markaan joogno guryo cariiriya iyo xaafado cariiriya lagu wada nool yahay dadkan isdul saaran dhibaatada in laga ilaaliyo u baahan tahay. haddiina la yiri guriga jooga inaan joogno haddiina la yiri goobaas ka jooga aan ka joogno inaan u turno dadkeena waayeelka ah dadkeena duqowda ah dadkeena tabarka daran dadkeena cudurrada kala qaba inaan u turno yaana ka rabaa. sidaas daraadeed waxaan ugu baaqiyaa dhammaan jaalidaha Soomaaliyeed ee dibadaha jooga arrintaas inay tixgelin weyn siiyaan oo ay fariimaha uga soo baxaya wadamada ay ku hoos nool yihiin ay dhageystaan diinteena xaniifka ah arrimo ee dardaarantaa jirto nadaafada ah. sidaas oo kale in karantiilka waa arrin diini ah oo sharciga islaamka ku yaala wax dhibaato ah ma laha. qadarka ilaahay waxaan uga cararaynaa sida Sayyidina Umar oo sheegay qadarka ilaahay hala digtoonaado walaalayaal hala tixgeliyo fariimaha hala dhageysto dhammaanteena arrintaas aan u soo wada jeesano aan wada istaagno waa maasantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.